aragtaan waxaad ogtihiin waddanka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed waxay u aaminsan yihiin dad aan diin haysan Soomaali taa ka walb halkii kiiloomitir meeqa dugsi quraan ku yaal boqolaal ma aho qof muslim leh oo cunugiisa dugsi geeyey oo qur'aan baray oo xaafid noqday kadib cunugiisa u dirsaday inuu cilmi u soo barta oo cilmi u soo barti ayaa mararka qaarkood cunugii intay maskaxda ka xadaan ayaa waxay leeyihiin aabbahaaga qur'aanka ku soo baray iyo hooyadaada qur'aanka ku soo bartay gaalay ahaayeen qof gaale cunugiisa dugsi ma geynaa ya qof gaale cunugiisa dugsi mudira marka waxaa waaye waan dareemi karnaa waxay la dagaalayaan caalamul islaami markaa fiirisiin waddan boqolkiiba boqol muslim ma jiro Soomaali laakiin boqolkiiba boqol muslim way marka waxay rabaan inay koox gaale ay keenaan koox nooc kale ay keenaan dad diinta ka baxa ay keenaan boqolkiiba boqol muslimtaan ayaa dadka dhiboys marka khawaarijtan waxay la dagaalamayeen waxaa waaye in waddankeen islaamkan ay ku faanaan in laga xishoodo oo dadka islaamka markii la arkaba qof sheekhe laga naxa ee maxaa la islaamkii wax kale ay u abuuraan ayay ka shaqeynooyin marka wasaaradda awqaafta ama diinta jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay garab taagan tahay haweenweynaha Soomaaliyeed mar walba xaqooda waajibaadkooda inay helaan waana dhiirigelinaysaa waxaan rabnaa waajibkiin inaad ka soo baxdiin kaalintiin waa muuqataaye inaad sii la waajibaadtiin rabnaa waxaan rabaa faraskaas soo ordaaya usha waxaa loogu dhuftaa inuu sii dheeray marka haweenweynaha Soomaaliyeed oo wasaaradda ay hogaaminaysa dadaalkooda waa muuqdaaye dadaalkooda waxaan rabnaa inay sii laba jibaaraan hubaal waxaa intaan haweenweyne iyo shacab qof walba haddii amniga uu ka shaqeeyo magaaladan amni ay noqonay waxaa way hadda ka hor dagaal la wadaadiyaa leeyahay dad badan ay ahaayeen waa la isfahmi waayey ninaa marka wuxuu yidhi dadkaas ay isku fahmayaan waxaa talaa la soo jeeday waxaa la yidhi qof walba madax mayraxa looga xira way badan yihiin intaan yaa madax mayr uga xiri kara nin caaqil ah wuxuu yidhi nin walba asilay madaxiisa mayraxa ku xirta qof walba annaga naga mid haddii amniga aan ka shaqayn muqdisho soo amni noqon mayso gobolka banaadir soo amni noqon maayo marka walaalayaalow amniga oo laga shaqeeyo jihaad way nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid qofkii hantidiisa loo dilo cirdigiisa loo dilo sharafkiisa loo dilo ama loo dhibaatay shahiid way marka hawsha aan wadno howl ajar aan ka helayno way haweenweynaha inay isku duubnaadaan dowladooda ay ku duubnaadaan inay ayagana wada shaqeeyaan dowladoodana ay la wada shaqeeyaan diinta islaamka waa idin sharaftay waa idin karaamaysay sida daayadiba aan sheegay aayado badan aan ku soo degi ina almuslimiina waalmuslimaat waalmu'miniina waalmu'minaat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أنت هنقول هوين وينها لو قال له يا مسلمين أنت مركز دينك شرفها كل هذه دين إسلامك مرتك متين دين إسلامك هجانك إذا وحاوي هواك الصوماليات واي مركز أساسي لو فهمتين إن شاء الله أنا كنا كوزارة أوقافتي أنا دينته وحنكون ذلنا دورك هواك الصوماليات أي كلهن في دينت دين إسلامك إيو جهادك مرول بين الموجنا دي لا يدمه مركز بلنتنا وحاوي إن دينتنا أن مرتي قفنا وقلنا oo maxaa lahaay culimadeena aan garab istaagno wasaaraddeena aan garab istaagno aan iskaalmaysano aan isu kaalmaysano watacaawanuu cala albiri waataqwa ballanteena waxaa waaye in diinta islaamka gacanta midig aan ku qabsano soo maahan in diinta kow ay noo ahaat wax walba aan ka hormarin diinta islaamka soo maahan sharafaa leedihiin allah idin sharfo إلهي وحن كرجين إلهي وحن كبرينا
إن ودن كان أمني أمان نوغدق إلهي وعن كبرنا ودن كان أمني أمان نوغدق عدو هجبه عدو الشاف هجبه عدو هجبه صومالي هقول ليسته صومالي هقول ليسته هوين وين صومالية هقول ليسان صومالي قدان هقول ليسته هوين وين صومالية هم ذوان دولة هل مذوان صومالي قول إن شاء الله قول سورة جينا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.